أنا wanaagsan asxaabta qaaliga sida joogtada ku xiran kanaalka xaqiiqda wararka fadlan waran macna wax ka codsanaa si joogtada inaad subscribe to saarto fiidiyoogana aad like saarto maadaama aad daawanayso maalmihii ugu dambeeyay social media waxaa la isla dhex marayay Cusmaan Diamond fanaankii xanka soo saaray heestii kala kacsaneed ee bilaha dhawaan ku gaadhay 1 million views yartuma lagu haaya oo ah fanaan Cusmaan Diamond oo isla haddana Justin Now xaadirkan ka ah Muqdisho Bajaajli ama qaybaha TikTok ka wata Cusmaan Diamond oo ah fanaan caan ah oo Muqdisho si wada jira looga yaqaano ayaa maxaa ka jira YouTuberada caanka ee sida YouTuberada caanka uu soo saaray Xasan Toob oo leh gudoomiyaha Durdur Media Group oo lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka Official. Fartuun Balbalaarka ayaa beenisay guurka gebiyahaanba waxba kama jiraan ayay ku shaacisay barteeda Facebook ayay ku shaacisay ama haddana halka video ay ku soo bandhigtay barteeda YouTube-ka. Fartuun Balbalaarka ayaa tiri sidaan hadal u dhigma anigu ma gayo walaalkay qaali maadaama uu garabkayga yahay. Fartuun Balbalaarka oo magaceeda caadiga la yiraahdo Fartuun Ismaaciil Cali Fartuun Balbalaarka oo ku magac dheer Fartuun Balbalaarka sidaan ognahay gebiyahaanba ummadda caan bay ka tahay baraha bulshada ama meesha la isku badanaa Soomaalidu ku kulanta ee YouTube-ka. Fartuun Balbalaarka ayaa gebiyahaanba arooska Cusmaan Diamond ku sheegtay fadeexad lagu mamnuucayay ama lagu darayay akhlaaq wanaagda iyo xushmada ay hayso walaalkeed Cusmaan Diamond yartuma lagu haaya ayaa isaguna sheegay in aanu waxba kama jiraan hayn guurka ay sheegayaan dad ka mid ah oo baraha bulshada ku faafinaya in Cusmaan Diamond uu guursaday Fartuun Balbalaarka. haddaba waa bahda xaqiiqda wararka oo isku duwan oo gebiyahaanba leh fadlan walaal macaan haddaad nagu cusub tahay waa taa markii koowaad subscribe-ta noo saar gambaleelkana furo fiidiyoogana haddaad daawanayso sii share garee oo la wadaag asxaabtaada kale.